السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيد وحسن أحمد حسين وحان فردنا معهد الفتح الإسلامي وحان نحي علماء وجير غيب كمده وحان سو غارتي هدي أن نحي علماء dhakhaatiirtii magaalada oo shaqaynayso dadka xanuunsan daaweynayay inay shaqo joojin sameeyeen marka culimada waxay jeedinaysaa codsi insha Allah taala ku saabsan nimankaas dhakhaatiirta oo dadka daaweynaya khayr Allah idin siiyo waxa lagu jiraa bishii Ramadaan oo fadhiga badneed idinkana dad ajir doona ayaatina muslimiin dadka meesha ku xanuunsana dadkiina waaya waxa kasta oo laga yaabo wixii aad rabteen inaadan haysanin oo aan ladin sameeynin laga yaabo laakiin waxa loo baahan yahay khayr Allah idin siiyo dad ajir doonana inaan noqotaan oo dadka muslimiinta oo xanuunsan meesha ku jira aad daaweysaan shaqo joojinaad sameeyaan maqalnay Ilaahay idin barakeeyo waxyaalaha barkood waa wax gaalada looga daydo oo ku saabsan macnaha shaqo joojinta iyo dhibkaasayta wax gaalada looga daydo waay marka waxaan ku jirnaa bishii Ramadaan Ilaahay idin barakeeyo waxaan doonaynaa haddii aan nahay culimada magaalada khayr Allah idin siiyo in aad dadkaas dayacin rafaadsan oo isbitaalada yeelaan ama isbitaalka imaadayin inaadan dayacin faraha ka qaadin oo shaqadii ku laabataan Ilaahay idin barakeeyo oo dadka daaweysaan waliba hadda waqti kulul lagu jiraa Ramadaan waa ku jirnaa dadkan way kulul yihiin khayr Allah idin siiyo waxa loo baahan yahay dadka inaad daaweysaan waa walaalihiin dadka aad ka tageysaan oo meesha ka tagteen dadka aad ka tageysaan waa hooyaalkiin iyo aabayaashiin iyo walaalihiin waa dadka reer wajeer oo idinka la dhashay waay marka arimahaasay waxa la arkaa in meel kale Ilaahay xaqiisa ladin ka ciqaaba la arkaa oo mas'uuliyadaas aad marka hore hayseen dad ka tageysaan in ciqaab xaq Ilaahay idinka ibaada laga yaabaa oo Ilaahay idin ku ciqaab arinta iyada marka khayr Allah idin siiyo waxaan u baahanahay haddii aan nahay culimada waa codsi aan jeedinayna oo u jeedinayna dhakhaatiirta waxaan u baahanahay inaad ku noqotaan shaqadiina oo dadkii aad macnaha caawisaan hadduu Ilaahay raha dawladana wixii wada hadal aad la galeysaan iyo wixii aad ka raadinaysaan aad la gashaan hadduu Ilaahay raha saasan yaan idin jeedinaynaa khayr Allah idin siiyo hadayicina dadka xanuunsan ee istaalada yeelaan yaan la dayicin insha Allah taala oo dhibaatadaasayta iyo nabigeeda hadhow dusha la saareen khayr Allah idin siiyo idinka idin ku soo laabanaysa arinta iyada sidii aswalaalkeen maartii Xasan xusiga soo jeedi yaan isla wala qabnaa culimada meesha fadhida hadii ahni sidaas ogsoontiin xilli waxa lagu jiraa aad u kulul oo ninkii maartii hadina waqtigan xanuunsan oo kuleelkaana maartii u sii weeliya xanuunka maartii ziyaada ee dib hor la maartii iska qaadaya hadii aas haysanin ninkii takhtarka oo daaweyn lahay oo meesh loogu talagalay aan joogin marka ninka qofka asaga maartii xanuunkii ahay xanuun kale baa ugu darsamaya marka khayr Allah insi waxaan rabnaa inaan in ducooyna culimada hadii aan ahna wajeer khayr Allah insiya dadka maartii as u shaqeynaysiin waa dadka as ka dhalateen oo wax u soo barateen marka idinka oo maartii waajib ay ku tahay dadkiina maartii oo saddex joogtaan inaas daaweysaan idinkoo lacag qaadanaynin yaa hadana khayr Allah insiya wixii xuquuq oo maartii in ka maqan si wanaagsan iyo si wada hadal ah inaas ku raasataan laakiin dadkii maartii xanuunsanaay in ciqaab aan looga dhigin shaqo joojin iyo wax baa naga maqan in aan la dhihin maxaa yeelay dadkaas koro oo maartii oo isku dayanaysaan oo Kenyada kala waxa dhici karta inay maartii dad islaam aynan ahayn marka iyadoo lagu jiro bishii barakeysaneed oo Ramadaanka ah oo qofka la rabo muslimka ninka kale walaalkiis maartii inaas gacan qabta oo wixii u tiri kara maartii u tara marka waxa waaye waxaan in ku naseexaynaynaa oo ninka baryaynaa shaqada inaas ku soo laabataan oo dadka walaalihiin maartii oo xanuunsanaay aas maartii gacan qabataan idinka oo maartii khayr Allah insiya wixii in ka maqana aan rajeeynin insha Allah taala si wanaagsan inaas ku hashaan maartii marka ducada waxa waaye waa shay maartii wanaagsan qofka in laga duceysto maartii marka khayr Allah insiya dadkaas xanuunsan oo isbitaalka dhooban oo maartii meel laga yaabo dadka qaar inay meel fog ay ka imaadeen oo hadana aan haysanin hooy aan ku haysanin meeshaan marka qofka asaga ahay hadii maartii meeshaan markiis imaada
wax daaweeye aas weeya marka taas waxaa waay cuquubo baa ka dhalanaysa khayr allah insiya waxaan inka codsanaynaa waxayna waa barya xoog miihin maaragta waxaan leenahay walaalayaalow khayr allah insiya shaqada ku soo laabta dadka walaalihiin oo xanuunsan maaragta garab qabta annagana waa in duceynaynaa dadka idaalo oo maaragta magaaladan Wajeer ama county-gan Wajeer yaa in duceynaya maaragta marka waxaan inka codsanaynaa annagoo maaragta magaca islaamka ku hadlayna inaas maaragta shaqada ku soo laabataan oo dadka maaragta xanuunsanaay aska duceysataan oo daaweysaan taas iyo codsigayn ama maanta maalin sabti kuna beegan taar 23 bisha 3 2024 waxa runtii aan la hadli rabnaa takhaatiirta Wajeer codsi naga soo gaaray isbitaalka oo ah meeshii maarta inuu dib badan uu ka jiro rafaad badan uu ka jiro dad badan oo macnaha waxay bukaan meesha ay ku xanuunsan yihiin runtii aad anaga hadaan culimadii Wajeer aan aga dhaqanay arintaas aan rabaa codsi walaalaha anaga ee dhaqaatiirta ee magaalada Wajeer ka shaqeynayso inaan la hadalno maadaama ay yihiin dad muslimiin ah walaalaha anaga ah walaalayaal Ilaahay barakeeyo khayr Allah siiyo dadkii maaragtay aad bay u cabanayaan isbitaalka aad baa looga cabanayaa qayle badan baa ka imaaday hadaan culimada Wajeer arinta iyada way soo gaartay waana maaragtay ka xanuunsanay arintaas maanta iska imaana bal inaan codsi maaragtay aan soo joodino inaan naga aqbashaan insha Allah taala aad baan runtii u rajaynaa Ilaahay barakeeyo khayrkeena Allah baday bil Ramadaan oo aad u barakeysan baan ku jirnaa arinta iyada codsigaas inaad tixgelisaan oo waliba ka soo jawaabtaan oo waliba maaragtay idinkoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiis ajir agar raadinaya in dadka walaalihiin ah ay xanuunsanaa ee isbitaalka jooga ee wardarka jooga ee hatta dhakhtar aan haysanin inaad ku soo laabataan oo daaweysaan arinta iyada ya codsigeeda ya maanta runtii culimada hadaan nahay aan soo joodinaynaa arinta naga aqbal Ilaahay barakeeyo wajazaakum Allah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhaqaatiirta sharafta leh reer Wajeer salaamtaas islaamka ee idinku salaamnay idinka ay idinku socotaa culimadii igu horeysayna erayga ku hadleen baanu isla wada qabnaa marka walaalayaal bil Ramadaan lagu jira Ilaahay acmaasheena ha aqbalo dadkan aad shaqo joojinta aad ku sameeynaysaan waa dadkiini weeye muslimiinta ah ee mushaarka ku qaadanayseen ee dhaqaatiirta aad u haydeen weeye marka waxa fiican inaad xoogiina iyo aqoontiinaba inaad ku tabarucdaan baa fiican dadka akhriska ku jiray magarasa akhriskoodii inay joojiyaan inay magarasa dadkooda magarasa dhibaatada haysta inaad la qaybsataan baa waajiba waana bil Ramadaan oo magarasa adcaafan mudaacafatan ba ajriga la sii labanlaabaya saan ku hayna war dadka promotion ka raba iyadana magarasa waxa weeye waqtigeeda ayay leedahay insha Allah bidillahi alkariim marka walaalayaal idinkoo mahadsan oo aad iyo aad u mahadsan shaqadii ku soo noqda shaqadii aad u hayseen magarasa muslimiinta reer Wajeer iyo islaamka ku soo noqda insha Allah bidillahi alkariim wixii kale ee tabasho ee qabtaan bal culimada iyo idinku inaynu si kafool aynu u wada fadhiisano oo wixii idin dhibaya magarasa idinkuna aad sheegataan waanu idinka rajaynaynaa insha Allah reer Mandheera culimadoodii iyo dhaqaatiirtii way wada fadhiisteen markay wada hadleen magarasa dhaqaatiirtii reer Mandheera waxa war ku haynaa inay shaqadii dadkoodii ay u hayeen inay ku noqdeen على الرأس والعين إنay ku qaateen si wanaagsan oo walaaltinimo inay magarasa ku kubaaliyeen annaguna sidaas oo kale tayaanu idinka rabnaa ma kala maarano walaalaan nahay ehel baan nahay dadka jiran waa dadkeeni dad waxa jira laga dhaqaya magarasa kaliyaha laga dhaqaya ayaa jira dad magarasa dusina irbada ay ku wada taagan yihiin baa jira dad oo magarasa dadkaasi maanta hadii ay u dhintaan magarasa dhibkaas hadii kulay magarasa wixii meesha ka yimaada magarasa waxaynu ka wada nahay magarasa waa mas'uul baa inaga saaran marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin jazaakumullahu khayran annagu wixii aanu qabnay cidna soo dirsatay male laakiin hadda culimadii Wajeer baanu nahay oo magarasa magaaladana waan ognay xaaladkeeda iyo sida ay tahay iyo bulshadu say ku nool yihiin waan la soconnaa marka jazaakumullahu khayran aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaaladana tiina magarasa arintaas dib ugu noqda